ninkan dadku waxa uu u taray intaas oo ruuxa hadda dadkan meesha yaa shaqaale oo mushaar dawladeed qaata maxaa loo heli waa awal oo maanta loo helay asaga lagu helay dadku baadisiyay u baraaruge afariyo bariyo beelu qaybsigi ka bogsoonayo doorashano bilbila burshigi baryaha laga barandago barbarkii loo bataa cod ku soo bixi bilcaniyo raguba ku baratama حربي بوق الغفون وقبدن ياهي إلا باري قنطار وما بيد حنبا إلا باري قنطار وما بيد حنبا بركي جلتا بركادو كبدن المديد برواق وباري سما بشبشي وبرواق لجعليا حربي بوق الغفون وقبدن ياهي إلا باري قنطار وما بيد حنبا إلا باري قنطار وما بيد حنبا إبراهيم سينوا جنبركن وحنا سوسي عوضة وكم بهالسياي كنتم سنة عوضة بندورنيني عوضة خير الله سيو دوقا نجي بقولك شيخ يعقوب يا متسد أحسن اللي جوه يا أرنتن دحجري مقالة كاشوف دقيد عوضة اللي وصلوا تدركوا يا يوسف كان يجوا
hal walaalahan ka imaadeen yuu sheekha intaa duqoyda cawdaaq iskugu keenay ciddana maalinkii ka faa'iidaysatay codsi geysatay 3 sano sheekha wuu daba socday cawdaaq buu baryahayey cawdaaq iyo boqorkiisa khayr allaha siiyo arrintii way noo ballanqaadeen wayna siiyeen inkasta oo cawdaaq sidii hore u ahayd oo hadda weli cawdaaq nala socdo cawdaaqna aan ka codsanayna sida cawdaaqi kale ku soo gelahayey sanadkii 5 hore si cawdaaq lagu soo geliyo aan cawdaaq geedka ka codsan doonno geedka cawdaaqna mahad baan u celinaynaa boqorkii 7 odayaal ee na soo siiyeen way ku mahadsan yihiin annagana mahaddaasaan u celinaynaa assalaamu calaykum waxaan u maanay reekaasha imaashadaanada waa nabad waxaan u maanay waxaan jiri jirin wixii jiri jiray waxbaa ka jira waxaan u maanay waxa weeye siyaasad baan u maanay embigaan la soconnay embigaas oo ka dhashay reekaasha ninkaasaan wadnay reekaasha waxa weeye waxaad ogtahay ma kuu sheegaa waxaad ogtihiin baan nii sheegaynaa waxaan maray in 63 sano Kenya jirtaa ilaa 63 cagaan doorasho ma la sameynayay doorashada koowaad ee ciidan soo aado waa maanta wiilkaasaan wadnaa inagoo og inaan wiilkan cidda ka dhashay oo taagan yahay annaga hadda nii keenay waxaan rabnaa inaad soo dhawaataan ninka aan nii keenay aad naga qaadaan maartay aad qaadaan inta kale ka badnayd cawdaq baan u soconnaa cawdaq aan u soconno iniga ka mid ma tihiin dadkii oo kuraa dooni lahaa cawdaq weydin lahaa u socon lahaa baa iniga tihiin nin maanta wax loo sheegay waxa aad lagu sheegay intaad qaadan waxaad fahantaa ka fiican haman haddaan maanta ku bixino doorashaan rabnaa wax ma anfacayso waxaan u malaynay ninkan hadda ciise yar oo leeyahay waxaan u malaynay cawdaq waa soo dhibay soo saaba horta ninkan soo ciise yar oo maaha wuxuu qabtay soo lama garanay maxaa leh asaga oo asoo amray oo shaqo aan ku jirin yaan u malaynay la dabeeleyba ma heblayba intaasa mahad yaa laga sheegtay soo maaha hadda maxaa soo dhibay cawdaq yuu soo dhibay ibraahiim yuu soo dhibay ibraahiimkii loo soo dhibay muxuu yeeli asalba waa inuu wado cawdaq kul noqoya si yeelo horta inuu horta u wado soo maaha hadda waxaan maray ciise yarow nin loo sheegay male ragnimadiisii iyo qiimihiisana haddee saaka hadda waxaan maray islaam ilaahay nin loo sheegay male si hadda aan u aragno haddii la soo dhibay ibraahim baa loo soo dhibay ibraahimkii loo soo dhibay annaga hadda qoys hadda haddaan hay ree aadgari hadalba ma lihinba maxaa yeelay ma hadal baa noo bannaanba inaan ninkii nala qaadi karo aan la aadno soo ma aha hadda niman yahow waxaan yeelaysayna haddii ilaah yidhaaho ninkan ciise yarow leeyahay horta ibni aadan ilaahay baa dii karaa كباسين وحط الرأي كوسي جوان معها نبغى وحى على الأقرأ أبو قادن هذا كان رجع عنه هرتي قال حال دي حال يهدي لك ولا حال فيها رجع هرتي قال عليك أجا أدي هذا المحنة وندويا عنك وحنا كوجو دويا عنه نكا هذا سوري بعوضك برأيك اللوكن سوينا قادنا ما ديار بدنا سماها maadaama ibraahim aan dhalintiis aan u hadlayo ibraahim dhalintiis aan u hadlayo waxaan rabaa in laga gaarsiiyo cawdaq duqeyda cawdaq ee geedka noo soo qaan way mahsan yihiin xaliga waa la dhiibay dhanka lama qabsado nimanka nadaba socdaan ee maartay amba ku sii jireen amba hadda loolamayaan ee isgarab socdaan aan laga reebaan wax la siiyay anu aqaana 2017 Abdi Umar Shuuri sidii loo garab istaan aqaana duqeyda ayaga waan u baahanahay ibraahim oo fadhiyana taas ka kacno oo gaariyaha shidaal aan ku shubanno ilaa iskood meesha u dambayso ilaa lago anagoo garba buuxa cawda wax doon oo wax dhab inay naga tahay la arkayo ana la arko 6 bilood baa kuura ka soo hartay iyo bisis de taariikh 9 booliis la madhi marka aziz kan laga baxo wax hari karana ma jiro nin maanta dab
تدبر دبر عوضة أنا إيه بحسه ديار شنط لحظة كلا لحظة دقي عوضة وحن ربا لحظة دقي عوضة وحن ربا كتوكا اللغو يماشي كرسي ونقصه بالله بلنبلا يماشي قدام بقى أنا وقت توصل محست الجوكت واحد دت الجوك شعب كها أنا توصل إنك لسوق إنه إنك إيه تلفون واحد وصل الدري معنا ماله مركز أنت عسى عنك سوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيو الحمد لله محايا لتعرض إلهي تدكو اسكو كيرا على اسكو إيمان ويل كان نغانا سيدا مبسوق قلب إن شاء الله محايا لي waxa hadda leelay dad baa urursan waxa dadka waxa cabyar cabsiinaya rag baa sii horeeyay oo horaan yirmaan ku dhisayna maamooyinka hadda markanay to wiilkanaga mar buu noo imaaday aan qaadnay haddana ilaahi baa maxad iska inta noo wareegahay annaka buu noo wareegahay eegadan aadan geeri haddaan Ibraahin haddaan nahay cawda gambarka guuna siiyay markii leelay cawda annaka gambarka waan siinayna cawdaaqnimo aan ku siinayna haddana cawda baana annaka وما هتسنتهين الحمد إلهي بمحد إسكاله أنت هذا شيء نبغى ندقيسنا هاي محكوسة كم هذا الك إبراهيم كره إسكو قاضو ويل كيسنا حقاته وان قاضنا إن ويل كنا أنت ما موينك وإسكو أفبع هاي إسكو عدبع هاي لأن يرانا أنا كادلنا قضياشنا ويكون مدح كرك نجي لو سعودين وقضياش هذا الكود كم وينانا إنه دلين تنادان أنا كادلنا ويل كنا وان قاضناي ما قاعدتين عيسى يرو كاهن عيسى يرو كاهن ما قاعدين عيسى يرو كاهن وهو كتر يقول كنت وهو كتر يريد هذا جري واحد سهل الماء وهو لك أنا هذا جوري كيس ولا جلبت تجي نقضي أنا هاي هذا نوبه هذا نوين تجيها وبهيد هذا إقامته لكن نكن تذكر هو أطري أنت أصلا روح هذا تذكر ماشي يا شقار أو مشار دولة قاعدة محله اللي هو أول وما أنت الله هلي أصلا الله هلي هدي ما أنت جنبر كان أنتوا هلي وكوجو لسان سيد ما أنت اللي هيسك في عم بالله إلهي ما كره جينا إنه كفرست مركب وحاجرة عوضة ويل كذا رداء أنا الإستاء هذا الرداء هذا ودي ويدا عوضة هذا بريني هذا رداء ويل كان نرتو رهين هو يستاء أنا فرقها واقعا وهلو يستاء هذا دعنا خرطان بحرق العجري وما أنت بالله وتلعتن كماها لكن النماذج هذا واد موجس هذا الكحن كوسو قبل ويل كا وحور ترى وحرق وتري هل قاضو عوضة waxaan oga baahanahay inuu garab inuu nasiyo sidoo gambarka geedka nooga soo siiyay oo tala cawda uu noogu fiiriyay waxaan rabnaa cawda inuu la garab istaago oo hiili hooba aan ka helno uu maasan yahay cawda uu maasan yahay aad buu u maasan mahad baan u celinaynaa waa walaalaha anaga waqti badan baan anaga ayagu u shaqaynaynay ayaga waxaan cawda maanta ani ka codsanaynaa inay maanta noo shaqeeyaan gambarka ayna siiyeen ay noo shaqeeyaan oo ayna dhisaan oo alle faraha bannaa baan nagu filan hadalka lama baanin talabaqaad bixal rabaa iyo maarta isku xirnaan baa la rabaa cawda wuxuu yiri ku warwaan siin jirteen maanta idinkiisa si annagana ku warnoo soo doonta soo inta ma soo warka maqlaysaan kuura maanta nigiisa siya annagana kuura asaan nigu doonti noo soo doontana la yiri warka waa inta kali marka waa soo dhawaan waa maasantiin si sax oo hadasheen karibu الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال مدور الرئيس إلهي بمهد إسكاله الله إسكو كان كينا يميشن أنكو عافيمات قمنا نبتقلينا هيسانو وحن عننا هيسانو أنكو مدس موغين انت إسكو كان كينا وساك عافيمات كان نغم مغضو يوانا قنسيي ينبتقلينا الله سامهد إسكاله كان لبايسو وحام آدي آد مهد أمضان
dadweynaha reer kaasho degan ee maanta hablaha hooyooyinkeen gabdhaha walaalaheen dhalinyarada iyo duqeyda ee si fiican noo soo dhoweeyeen ayaa aad iyo aad u mahadsan waxaa kaloo mahadsan duqeydii kor ka imaadeen ee waftiga ah ee meelaha badan ku soo wareegeen ee cabdigaab soo mareen junction soo mareen shimbiray soo mareen isaaqa soo mareen ee intii dhul ay badnayd ee balanbala ka koobnayd soo mareen markaa kadibna aan kaasho ku soo hoyanay habeen hore waxaa aad iyo aad u mahadsan duqeyda iyakana shaqadaas soo wadeen arrintan ayada ee maanta aan kaasho u fadhinno meelo badan aan u soo fariisanay waa arrintii anigoo dibadda ku maqan muddo dhexdaa oo 3 sano laga jooga duqeyda Cawdaq aad geedkan asaga kaga codsateen ayakoo arrin kale oo dad heshiisiin ee u umaadeen todobada duqey gurigii Sheekh Yaquub intaad fariisteen aad dhahdeen 3 sano ka dhiman laakiin maanta waxaan rabnaa sidii walaalaheen 3 cid baa inta ka hor baarlamaanka tageen Cawdaq waa 7 raay reer guuleed aadan gari iyo maxaad bahayn inkastoo reer walaalaheen Aadam Cali ay 2 ka hore nominated la geeyay safartii hore wakiilna loo imaaday ee la yiri ayaka oo waligood sidii oo kala baarlamaan doorasho aan lagu geynin baan nii keenaynaa inaad qaadaan baan rabnaa waan la qaadnay Cawdaq si fudud oo nalagu rafaadin ayaan ku qaadnay kuwii hore walaalaheen ee naloo keeni jiray ama township berigay dhuujis ahayd iyo kasii horeba sidoo duqa uu yiri ruux u horeeyay duqa Cabdi Carays baan u riday 1969 ilaa maanta walaalaheen baan dhisaynay waana ku faraxsanayn wax bushi aan ku qabnay ma jirin maanta arrintii haddii la gedgediyey oo codsiga aan geysanay waad ogtihiin ani 2 koor 3 koor baa gaaris fadhi la dhigay mar guriga Sheekh Yaquub buu ahaa mar guriga Lantan buu ahaa marna gurigaygu ahaa intaan weli arrinta geedka la geynin ani waxaan idin iri walaalooshinow shaqo dawlad baan hadda idin hayaa xil baan hayaa eedayda badatay waxaan rabaa inaad qof kale la imaataan dalkii dibadda cidda way joogtahay markii u dambeysay duqeyda waxay dhaheen sabab baa jirta waxaan adiga ugu soo noqonayno oon ku leenahay application kaadaan geedka geynayna waan ka aqbalay arrintii ayada ahayd haddii geedka aan geynay bishii 2 sanadkii hadda anaga dhamaaday ee 2021 wixii ka dambeeyay shaqadiisa baan ku jirnay maraan libaax loo aadna maraan balanbala aadna maraan daanyeer aan tag maraan iskoo tagno hataa meel saraka la dhawaan u tagnay annagoo Cawdaqi xagga jiray iyo ummadda kale badneed ee la deganaydbo u raadinayna arrimihii abaarta geebna kala hadlayna walaalahood oo sarako ay u tageenna una dhaxaadinayna meelo badan baan u soo marnay talooyinkan ayake berigii markaan arrimihii xag u tagnoon xalinay taladan ayada waan geynay waxaan wadnayba 7 duqeey ee Cawdaq geedka u joogeen iyo boqorkoodii oo boqor deeqow macallin Maxamed Sambul ayaa arrinta gedgediyeen annagoo 6 wiil leh ayaa u fariis yaa application geysanay oo codsanay kun walba inuu yiri kursiga asagaan rabaa hadday gedgediyeen ileen rag u quluun ee weeyo culimada wareysteen dadka akhristay wareysteen dadka reer balanbala wareysteen niman hataa daanyeer joogaan oo duqeeye afkooda waxay iga dhaheen boqorkaana soo wacay dadka ayaa idan la tahay haddii la gedgediyey waxaa la yiri hadday cidnimo tahayna ciddaasaa weligeed inta ka hor baarlamaan la geynin meeshana degan oo maanta xaq u tahay hadday shakhsi tahayna ninka Ciise oo la yiraahdo yaan u aragnay inay maslaxada ummadda ay ku jirta arrinkan asaga sidii uu boqor deeqo oo u dhawaaqay arrintii ayada ahayd kullay video yahay mobile yahay waad ka aragteen baan u maleynaa diin inkaysanin caruurina haystaan asagoo hadlaayo oo leh kursiga township nin siyaad Cusmaan la dhahan siiyay kursiga balanbala cidaasaan siiyay ninka Ciise oo la yiraahdo faafi cidda reeqaasin oo hebel leh iyo kursiga gabadhaba ku dib u magacaabay marka sidaa darteed annaka maanta niigumaana imaanin arrintan ininka kol hore geedka geysateen oo ka codsateen marka annaka niigumaana imaanin maanta naqaada niigumaana imaanin waxaan idinkugu imaanay meesha mucdi haydan ka imaanay waa meeshan inaad Cawdaqi kale ee idinku hareereysnaa ee kabtan iyo iskood jiray intan ilaa lagoo jiray inkastoo intaasoo tuulaba dad ininka oo reerkan uu ka degan yahay inaad u mahad celisaan ilaan dadka go'aan ka bixiyay Cawdaq buu mathalay go'aan Cawdaq buu bixiyay marka nin kasto Cawdaq oo meel uu jirayba go'aanka ka mid buu yahay haduu dalka joogo haduu dibadda joogo meel ay joogaan baad u mahad celisaan gabar iyo wiil iyo dhalinyarabo
haddana aad u weydiisataan oo dhahdaan maanta waxaan rabnaa sidii wax naloo siiyey walaalooshin oo sidii duqi haddaa iga horreeyey uu yidhi ameel caano ku jiraan oo dhiibtay haddana haddaad qarka haysato waa foolxuma waxaa yeelay neefkii sekoon saaka aan bixiyo oo nin walaal aan ugu deeqo ama ku kaloo kaalmoon bixiyo haddaan anigana bixiyo wiilashaydii iyo gabdhahaygiina kudi dhinacyahan ninba neefka uu lugta ku dhego waa waxaan weli la arkin waxaan kaloon weli la arkin xoolaha markay cabbaan oo la soo horo kuwii horaan cabbeen oo xaanida jiifaan inay haddana darka lagu soo celiyo wixii kuwii horaan oomana oo la soo horaayay ay ooman yihiin oo mar dhaalintaa la soo horay inay la dhaho kac haddana darka hala galaan kuwii horaan cabbeen marka walaalayaal midda u hore cawdaq waxaan leenahay sidaa duqayda ay sheegeen aad iyo aad buu u mahadsan yahay boqorka iyo duqaydiisaba nimaan ka eed sheeganaynoon horaan buusaa noo dhimay leenahay ma jiro waxaan rabnaa kursigii in nalagu dhiso garab naloogu noqdo nalala dadaalo intii annaka aan mari jirnay een walaalaheen u mari jirnaan u marno midda kale wiilasha taagan cid bay mid walba cid buu ka dhashay ciddiisi ama wax kaluu hadda yay doonaysaa ama ma ahee horaan baan soo dhisnay oon meelo badan ka soo dhisnay waxaan rabnaa maanta cidda waa ciddi ninkana waa ninkii soo dhisi jiray inaad xishootaan inikoo fiirinaysaan baahida walaalihiinna intay nii soo samri jireen oy waxba nii weydiisan jirin markaad wax weydiisataan ayakoo laba dhinac fiirinayn ay bixin jireen tii aadna dhihi jirteen haddana aadna dhihi doontaan baan idan leenahay waxaan idan leenahay intiina taagan iyo ciddiinniba wada hadla noo tanasuula noogu deeqa berrina abaal baan idinkugu haynaa annakan waa idinkugu deeqi doonaa kursiga inaad naga hartaan tan kale dadweynihii reer balambala oo kaashaba ay ka mid tahay meeshan hadda aan joogno waxaan u xaqiiqshaynayaa inaan dadaalkii iyo siday u arkeen inay meesha igu aamini karaan iyo kalsoonida ayadaan uga mahad celinayaa taa ayadana tu aan ciyaar iyo ama aan yaraysanaya ma aha inaan dadaalka siday u filayeen inaan meesha ka dadaali doono oo ninkaa maanta aan ku dayna ay u dhaheen anigana inaan hoos u dhigaynin oon dadaalka meesha iyada ahayd ka wadaayo ayaan ballan u qaadayaa ayadda aan joogay laga soo bilaabo dalley ilaa daanyeer ama ilaa baashi mudikaare ilaa baashi ilaa 12 sent 13 sent ahaayeen maalintaan ka tagayna 53 sent aniga DSG geeyay ana DDC geeyay ana Geneva u diray maantana 53 sentaan ku kordhiyay kudina maanta sanduuq baa la dhigayaa waxaana aaminsanahay bariga dadaalka haddaan sameeynin maanta kursigan balanbalaba inaan la helen waxaa yeelay waxaa lagu helaa deegaan nasiib ilaahay wuxuuna waafajiyey kursigan balanbala waxay Kenya bixisay oo dhuujis magaalada Gaarisa laga soo gooy 2012 iyo 2013 waqtiga aan sentaya ka dhigayna waxay ahayd 208 209 ilaa 2010 maalintii wareegga guddiga uu umaaday la fiirinay waxaan oo 53 sentaba ay degan meesha u yar 100 qoys ay degan tahay baa loo imaaday sidii baa sentayihii meelo sanduuq la dhigay looga dhigay chiefya loogu yeelay district iyo constituency baan ku helay marka walaalayaal dadaalkii asaga aan oo dooranin oo hay'adda ka shaqeynayo aan u gartay baahida dalkan anigoo maanta la doortay oo kuura la ii dhacay waxaan u malayn xilkii ka weyn baa i fuulay ka marka shakhsi baan iska ahaa ilaa ummadaydan garanay inta kalina sentaya kama sameyn lagdheera baan ka sameey dhadhaab kursiga la dhan ka sameey faafi baan intaasoo senta ka sameey ijaarana way ahayd marka waqtiga iyada Gaaris aan u weynaa hay'adda meel aan ka hakraday ma jirin taana waxaan rabaa dadweynaha kale Gaaris inay ogaadaan oo ay dhaheen bariga ama balanbala kaliya 53 sent ugu daray ayagana taa ogaadaan waxaan leeyahay dadaalka meeshii iyada ahayd baan ka sii wadi waan dadaali waxaa yeelay ibn aadan kuura ku riday xaq weyn buu kugu leeyahay sidaan u arko waxaan u malayn madaxdana bari ma dareensano xilkan la qaadayo iyo kitaabkan lagu dhaaranayo waa arrin aad looga argagaxo ninka islaamay waxaa yeelay Umar bin Khattab inta koor wuxuu yiri faraska Shaam maray Shaam 200 kilomitir bay Madiina meeshuu joogay u jirtaa haddii faraska jidka marayo uu dhagax ama geed ku gufta anigu Ilaahay maalintii yawm qiyaam i weydin buu yiri waxaad u malaysay marka qof kuura ku riday oo ka warqabin oo laga yaabo wax aad wax ka qaban lahayd inuu u dhinto ama ma ahe sida abaartii bar hore dhacday oo u rafaado waxaan ani ballan qaadi inaan arrinta dareensanahay xilkaygana aan si fiican u gudan doono aad iyo aadna aan ugu dadaali doono kursigan asaga ee balanbala naga dhagan iyo hirbaayo dhinaca waxa naga dhagan kunno bariga sentayaan ka dhigay ilaa buulakurow kor waxa naga Cabdigaab iyo Ohi way fara badan yihiin ilaa meesha la yiraahdo El Qareer ee halkano lagu magacaabo ilaa xagar jareer
dhulka asaga inaan sentaayihi iyaka nin meesha guriga asaga u dhisay intuu la yaco guri kale ma aaday marka sentaayihi iyaka inaan maanta fiiriyo haddii ilaahay igu guuleeyo oon baahidooda fiiriyo oon ku di tilaabo ka qaada ayaan ballanteeda qaada haddii ilaahay cimrigeedii na siiyo ilaahina uu nagu guuleey marka walaalayaal maanta waxaan idinkugu umaanay inaad dadaashaan oo gabdhay saaxiibo la yihiin oo kabtan iyo daanyeeri joogan saangur wiilal bay saaxiibo la yihiin kuddi inaad gurmataan ninkii u yar uu dhaho ani 20 ruux oon ciidan ahayn oo cawdaaq eban keeni oo saaxiibahay eban kuura ka keen uu yiraahdo nin walba dadaalka asaga uu muujiyo ciidan baa laga sugi cawdaaqna uu mahadsan yahay madaxdiisana way mahadsan yihiin kuwa hadda ku jiraan xilkooda ha dhameystaan waxaan u dhimayna male way mahadsan yihiin ayagana shaqadooda ha dhameystaan waxaasay haleeyeen iyo waxaasay ka gaabiyeen iyo propaganda ma wadno nalagamana maqlaayo inta kale taagan waxaan leenahay walaaloshinow naga hara oo noo tanazuula ninkii iska madax adkaysana waxaan leenahay si fiican ha u campaign garaysto waxba dadka iyo ku mashquulin waqti dambi badan oo fidna badan oo campaign baa la joogaa qabiilaha aan isku dirin nin walba hadhiin la hebel baan isku diri sifa ani waan wax u hel waxa laga yaabaa maalinta campaign inaad gaari weyso ood geeriyoota laga yaabaa adiga oo dad isku dirayso inninkana waxaan idan leeyahay wixii aad maqashaan waxaad indhihiina ku aragtaan moogiis garab dhiga propaganda badan baa socotaa hebel wuu haray hebel waa kan hebel wuu gorgortamaya fidma badan baan maqlay in dhulkan oodi lala wareegay waxaan u malay nimanka kale lama propagandmeey wax la propagandmeynayo kudigoodba inaan keligay ka horeeyay u arkaan marka nin walba wuu naxay marka si alla sidii ninkan waxay lama maqlaysi 5 nin oo kale oo leeyahay hebel wuu haray ama lacag buu qaatay waxay intaa u shubayaan waxa weyn nin walba waad aragtaa 5 ninbo hal nin bay toosho ku hayaan oo ka cabsanayaan marka ayakana waxaan leeyahay walaalkiin baan nahay qaarkood kuwa waxa ku jiraan inta ka hor kursi aan nooga haray waxaan u farayaa kursigan inuu kursiga yahay ciddi ka hartay ay tahay ninkana ninkii ka tanaasulo u yahay oo maanta aad gaabsato waxaan leenahay walaalaheen meelay joogaanbo islaam baan nahay ballantaan qaadno waan ka soo baxaynaa waan dadaalaynaa dad isku madirayno kuurahana si dhab oo walaalnimo baan u weydiisanaynaa ninkii kale oo campaign garaysana si fiican u campaign garaysto dhulkeennana baahidiisu way badan tahay abaarta ogaantaa la soo maray waxaan u maleeyaa anoo la doortay abaartii dhaahoroo kale day la kulmi lahayd anoo hay'ad ka shaqayn baa raashinka geedaha ku tumnaan jireen meelaan ka keenaba waad garanaysiin anoo maanta la doortay boonshana miina gadeen baan u maleeyaa biyana lama gadeen sidaan aaminsanahay kartida ilaahay geliyay dadka xoolo dhaqatada gabdhaheena faraha badan ee laga soo bilaabo lago Modikaarey ilaa Dhuujis ilaa Shimbirey Cabdisamed Nuunow Jangshoonyaha Cabdigaab Oohiyo Umar Maxamed Dogob Hiifow ilaa Xagar Jareer degan ee oonka iyo gaariyaha u rafaadeen waxaan ballan idin qaaday hadaan soo galo biyo dambe 10 kun oo shilin inayna ka bixinin oo haddii abaar ilaahay keenan 10 shilin ka bixinin raashin la'aan loo rafaadin ayaan ballan u qaaday dhalinyarada dawladda Kenya way balaaran tahay countiga yar oo Kooriyo Kubliyo u dhaxeeyo ogaadeen gaal iyo islaambo loo fadhiyo ayaa lagu mashquulo shaqo laga raadinayo una deeqi laay marka waxaan idan leeyahay haddii aan soo galo Kenya waxa ka jirta dhowr iyo 30 wasaaradood baa ka jirta barastatoliya haddii la dhaho kuwa barastatoliyaha loo yaqaano wasaarooyin kale gaargaarka 100 way gaarayaan mid aan 600 oo shaqo sanadkii laga soo dhajirin male dhalinyarada waxaan u ballan qaaday inaan shaqo Nairobi uga abuuro oo mardama gaaris dhaxeeda la isku mashquulin hay'adaha aan shaqo uga raadiyo gurubyaha lacag aan ugu raadiyo dhalinyaro markaan ka hadlaayna wiil kale lagama hadlaayo dhalinyaro waxa la yiraahdaa gabar iyo wiilba waxay 40 ka yar baa la yiraahdaa maamooyinka iyo dadka waaweyn inikana ballan baan idin qaadi gurubyaha wax ku qaadan kartaan becsharaan ilay furi karaa waan ogahay markii la dhaho wax baa la bixin ama jid baa la bixin ama laba qol baa la dhisi ama iskuul baa wax laga dhisi duqeydun baa isgarab ordaan ininka naftiina haqiina leedan waa xaq haddii 3 ay yihiin in labana rag laga dhigo midna bilcaan laga dhigo haddii 4 yihiin labana rag labana bilcaan laga dhigo waa xaq marka waxaan leenahay gabdhaheena xalay markaan fadhinay arrimaha u daranay sheegteen waxaad dhahdeen nin alla ninkii la soo doortaba nin uu yaqaan annagana lama yaqaan marka maanta waxaan ballan idin ka qaadi hadda ka dambe meelay gabdhaheena degan yihiin meeshii ummadda degan gabdhaheena markaan ka hadlayaan ciidan meesha degan kama hadlaay gabdhaha balanbala kursiga ku nool inta laga iyo daanyeer u dhaxayso ayaan ka hadlayaa gabdhaha ayaka inaan idin dadaali on bilcaan iyo rag iyo dhalinyaro iyo oday inaan idin dadaali wixii karaamkayga aan qabanaay ilaa aad ku qanacadaan dhahdaan wixii dadku baadi
isiyey baraaruge afariyo bariyo beelu qaybsigi ka bogsoonayo doorashano bilbila burshigi baryaha laga barandegyo barbarkii loo bataa cod ku soo bixi bilcaniyo raguba ku baratama حربي بوق الغفون وقبدن ياهي إلا باري قنطار وما بيد حنبار إلا باري قنطار وما بيد حنبار بربركي جرتا باركادو كبدن المديد برواقو باري سما بشبشيو برواقو لجعليا حربي بوق الغفون وقبدن ياهي إلا باري قنطار وما بيد حنبار إلا باري قنطار وما بيد حنبار